oo wadanka baasaboorka markii wadan u dhoofayaan ku dhoofo baasaboorka Somaliland oo wadanka baasaboorka ku diidana aanu tagin baasaboorka Somaliland maanta wuxuu yaalaa halkii ugu hoosay buu yaalaa 26 sanadood oo nolosheeda kamid ah baan u samirnay inuu wax noqdo kuwa maanta warqada ka dhigay ee baasaboor aan qiimo lahayn ka dhigay waa kuwa maanta talinaya way xilliyadii hore baasaboorka Somaliland wadamo badan oo Afrika kamid ah oo Yurub kamid ah oo adduunka kamid ah baa lagu tagi jiray matalan imaka Dubai walba inala joogta nimankii Carbeed way inoo yimaadeen military base bay naga dhex samaysanayaan dekedeeni Somaliland deeqan u bixiyeen way qaateen haddana baasaboorka Somaliland Dubai kuma booqan karo dhulka inta leeg ayay doonayaan saliig military inay ka dhigtaan qof bini aadama in qaada oo wad imaarada Dubai kamidana uma ogolo qof Somaliland inuu booqdo waxa la isdhaafsaday aanu garmaayo baasaboorka Somaliland hadaan saa loo dhaamin dalka iyo baasaboorku way isku xidheen dadka masaakiinta ee shacabka ee laga dhigayo dad container ku xidhan sidan ku socon mayso madaxdu waa inay isticmaashaa waxa shacabku isticmaalayaan haday nin walo siyaasi oo baasaboor wadan kale intuu jeebada xagga dambe kala soo baxo dabta wada kaasan isticmaalaya hooyada iyo dadka masaakiinta ana Somaliland buu ay isticmaali karaya ma soconaysa arintaasi cadaaladna noqon mayso baasaboorka Somaliland waajibka koobaad ee isticmaalku wuxuu saaran yahay ninka siyaasadda ku jira ninka xilka haya madaxweyne ku-xigeenka wasiir ku-xigeenada iyo agaasimayaasha dhammaantoodna baasaboor wadamo kale isticmaaleen arrintaasina waa arrin ayaan daraa runtii dareen gaaray ummad qaybsan qaran noqon mayso sidan Somaliland maanta tahayna guul lagu gaari maayo